xisbiga onlf, xisbiga serda, xisbiga USP, xisbiga UDF, diilwebi iyo xisbiga duuba iyo degine. xisbi kaloo Soomaali ah oo Itoobiya ka diiwaan gashanoo haray ma jira marka laga soo tago shantiinan hadda isu tagay? xisbiyada intii badan meesha ku jiraan, marka xisbiyada waa la sahlay in la samaysto. marka maalin walba magac cusub aad maqlaysaa, waa laga yaabaa xisbiya aanan fagaaraha si fiican u iman inay jiraan, laakiin intii caankahayd waa kuwan. ujeedkana muxuu yahay marka? waxa aad ku midowdeen maxay tahay Cabdiqaadir? waxaan ku midownay in danta guud ee Soomaalida laga shaqeeyo, midnimada Soomaalida laga shaqeeyo, midnimada dhuleeda Soomaalida laga shaqeeyo, xuquuqda Soomaalida ka maqan wadajir loo raadiyo ee dhuleed, ee federaalka awood qaybsi ah, baarlamaanka nagaga maqan, khayraadka Soomaalida, qadaayaadka guud ee dadka Soomaalida oo dhan saameeya, gobol iyo koox goonina u ahayn, in dhammaan si wadajira loogu halgamo oo sidoo kale dawlad wanaagga Soomaalida in laga shaqeeyo, dawlad wanaagsan loo dhiso dadka Soomaalida, systemka dawladda la hagaajiyo. doorashada ma sidaasaad ku gelaysaan oo ma wadaagaysaan siyaasadda doorashada lagu gelayo? siyaasadda doorashada siyaasad midaysan iyo barnaamij midaysan guddi baa hadda loo xilsaaray. waxaa lagu dhex jiraa xeerkii isbahaysigan, waxaa lagu dhex jiraa qorshaha siyaasiga ama barnaamijka siyaasiga ee isbahaysigan iyo ololka iyo mabaadi'da guud ee doorashada lagu geli iyo doorashada kadib la fulinayo. arrimahaas oo dhan hadda qorqoridoodii iyo tifaftirkoodii baa lagu dhex jiraa. Cabdiqaadir, sidaan ognahay Itoobiya aad bay u qasan tahay, jahwareer siyaasadeed baa jira, lama ogo xilliga doorashada, muddo kordhin baa la sameeyey, haddana waxaa laisku haystaa arrinta sharciga, maadaama la leeyahay muddaxileedka baarlamaankan iyo xukuumadda markuu dhammaado ha loo raadiyo sharci. waxaa dhici doona tigreegii way maqan yihiin, oromada qaar baa caraysan, amxaaradu iyadana xisbiyada qaar baa diidan muddo kordhintan iyo waxa socdoo dhan. idinka ka hadalka howlahaas masiiriga ah xaggeed kaga jirtaan haddaad tihiin xisbiyadiinna mucaaradka ee Soomaalida? waxaan ku jiraa hawsha in la akriyo isbahaysiga Soomaalida inuu akriyo, laakiin isbahaysiga ANDF ee aan ku jirro 19 xisbi ee qowmiyadaha kale Itoobiya ay ka mid ka yihiin, annagu ka mid ka nahay, oona xubinta ka tahay, serda xubinta ka tahay. isbahaysigaas wuxuu qaatay 4 qodob oo kala ah in muddo kordhin loo ogolaado xukuumadda 1 sano ah, in gole la tashi ah oo ka kooban xisbiyada la sameeyo oo la taliya xukuumadda muddada ay kala guurka lagu jiro, inaan dastuurka waxba laga bedelin oo kooxad iyo xoogag doona ayaa jira in dastuurka la furfuro oo qodobo asaasi ah ummadaha laga saaro ama wax lagu soo darsado. dastuurka markii sidiisa in loo daayo, systemka siyaasiga iyo hoggaanka la galo ee markaa dalka hagaya prime ministerkan uu hogaaminayo inayna awoodo dheeri ah ku darsanin. 4 qodob bay soo saareen isbahaysiganagii. ururada isbahaysiga Soomaalidana kuwaan buu taageeri doonaa insha Allah. Addis Ababaad ku dhisteen isbahaysigan xisbiyada mucaaradka ee Soomaalida ee dalka Itoobiya. maxaa jugjiga iyo dhulkii u tegi weydeen ood halkaa ugu samayn weydeen isu taggan xisbiyada mucaaradka? wadahadalladu waayaha way socdeen, jigjigay ka bilowdeen, marka xisbiyada la tashi baa loogu yeedhay. markii hadda muddo kordhintan dawladdu ay socotay, golaha xisbiyada mucaaradka ah baa jira Itoobiya, golahaasaa xisbiyada u yeedhay, xafiiska prime ministerka looga yeedhay. arrintan sharciyadda iyo doorashada dawladgeeda iyo doodan siyaasiga ee Itoobiya ka socota ee xisbiyada loogu yeedhay. marka fursad la soo heleen bay ahayd, xisbiyada dooda ku bilaabatay, muddooyinkana way socotay, waa la soo horumarinayay.